ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Bakistan Imran Khan ayaa ugu baaqay shacabka Bakistan inay isugu soo baxaan mudaharaadyo nabdoon si loo muujiyo awoodda shacabku ay ku doonayaan inay sanduuqa codbixinta wax ku beddelaan. wuxuuna ka digay inay dhacdo fawdo haddii mas'uuliyiinta dawladdu ay isku dayaan inay hor istaagaan mudaharaadyada nabdoon ee ka soconaya gobollada waddanka Bakistan. Imran Khan ayaa sheegay in mudaharaadyada waqti dheer la qorsheynayay islamarkaana uu ka bilowday magaalada Lahore, iyadoo ay shacabku doonayaan inay ku cadaadiyaan xukuumadda inay qabato doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyey. malaayiin qof ayaa aqbalay oo ka soo jawaabay baaqii ra'iisul wasaare Imran Khan, waxayna mudaharaadyo ka sameeyeen gobollada Bakistan. mudaharaadyadaan ayaa maalintii labaad soconaya, iyadoo dadweynaha Bakistan ay dalbanayaan in la qabto doorashooyin xor ah oo looga baxo xaaladda adag ee uu dalka Bakistan xilligan ku sugan yahay. dadka tirada badan ee mudaharaadyada ka soo qayb galay ayaa muujiyey in Imran Khan uu yahay hogaamiyaha haysta taageerada ugu badan ee shacabka Bakistan, oo ay dowladda Bakistan hubto in haddii ay qabato doorashooyin xisbiga Imran Khan ay shacabka Bakistan dooranayaan, waana arrinta dowladda Bakistan ay ka warwareegayso. sida ay sheegayeen dadka u dhuundaloola arrimaha siyaasadda Bakistan, waxaana dowladda Bakistan xilligan haysta cadaadis weyn oo ah inay qabato doorashooyin. ra'iisul wasaarihii hore Bakistan Imran Khan ayaa khudbad ka jeediyey meelo badan oo ay dadweynaha taageersanay isugu soo baxeen maanta. mar uu la hadlayey taageerayaashiisa waxa uu yidhi sidan: malaayiintiina qof ee isu soo baxyada nabadeed ka soo qayb galay wuxuu muujinayaa halka ay taagan yihiin dadka reer Bakistan. mudaharaadyada shalay iyo maanta ka socda Bakistan waxay noqonayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu weynaa ee taariikhda dalka Bakistan ee ay dadku ku doonayaan inay doortaan cidda ay doonayaan, oo ay isleeyihiin sharafta iyo karaamada Bakistan ayay kor u qaadayaan, isla markaana hagaajinaya nolosha muwaadiniinta. maanta iyo berri waxaynu ka dhabaynaynaa halkudhiggii iyo dardaarankii halyeegii Bakistan Cabdiqaadir Khan ee ahaa Bakistan waxay u baahan tahay hogaamiye feejigan, aragti dheer oo aan walwal ka qabin nolosha, lana socdo wacyiga guud ee dunida iyo tan dalkaba. idinkuna ciddii soo dhoweyn karta sifooyinkaas ayaad codka siin doontaan, cid kastaba ha noqotee. shalay iyo maanta waxaad mar kale muujiseen haddaad shacabka tihiin inaan dibadda waxnayloo ka keeni karin oo aan dadka Bakistan la jajuubi karin. way caddahay waxa ay doonayaan shacabka Bakistan marka la eego tirada dadka halkan jooga ee isu soo baxyada ka soo qayb galay iyo inta joogta gobollada kale. waa haddii la tixgelinayo rabitaanka shacabka ama waxa loogu yeero dimuqraadiyadda, inay dadku si xor ah u doortaan cidday doonayaan. laakiinse haddii la iskhasbayo ama la doonayo in xukunka awood lagu joogo, waa arrin kale oo aanan saadaalin karin. laakiinse xoog Bakistan way ka gudubtay, wayna ka ilbaxday, waayo shacabku ma aqbali doonaan. aniguna shacabka ayaan ka mid ahay. waxaan ku kalsoonahay sanduuqa codaynta in lagu kala baxo. dowladda hadda joogta waa inay kalsooni la timaadaa oo ay tartanto. xisbiga PTI ee uu hogaamiyo Imran Khan ayaa maamulo gobollo badan oo dalkaas Bakistan ka mid ah, oo uu ku jiro gobolka Punjab ee ugu dadka badan dalka Bakistan oo ay caasimadiisu tahay Lahore. Imran Khan ayaa taageero badan oo xaddhaafa sii helay kadib markii xilka looga tuuray shirqool ay soo maleegeen reer galbeedku. dhinaca kalena Ruushka ayaa isku diyaarinaya inuu dagaaladii ugu cuslaa ku qaaday Ukraine, sida ay sheegayaan xogo dhinacyo badan laga helay. Oleksiy Arestov oo ah sarkaal sare ahna la taliye sare oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay isku diyaarinayaan inay galaan dagaaladii ugu culusaa ee ka dhaca gobolka istiraatiijiga ee ku yaala koonfurta Ukraine ee la yiraahdo Kherson. ciidamada Ruushka ee ku sugan gobolkaas ayaa lagu khasbay inay dib u gurtaan toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii ay la kulmeen weerar ka socday dhinaca galbeed ee webiga Dnipro.
oliski ayaa sheegay in ruushku ay sii xoojiyeen ciidamadooda islamarkaana ay ku khasbayaan dadka rayidka ah inay halkaasi isaga guuraan. wuxuuna intaa ku daray in dagaalkani uu noqon doono midkii ugu adkaa. dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Kuleba ayaa sheegay inuu Iiraan ka codsaday inay joojiso hubka ay siiso Ruushka kadib markii labaad oo uu wadahadal la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi, waxaan ka dalbannay Iiraan inay si degdega u joojiso hubkeeda ku socda Ruushka ee loo isticmaalo in lagu dilo dadka rayidka ee reer Ukraine laguna burburiyo kaabayaasha muhiimka ee Ukraine. Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku uu adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shaahid 136 ee Iiraan lagu farsameeyo, iyadoo sidoo kale saraakiisha xulafada reer galbeedku ay ku eedeeyeen Iiraan inay siisay Ruushka waxa loogu yeero kamikaze, waa diyaarado aan duuliye lahayn kuwaasoo dhowaan loo adeegsaday burburinta kaabayaasha Ukraine sida ay sheegeen reer galbeedku. Iiraan ayaa si adag u beenisay inay wax huba oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inay siisay Ruushka. toddobaadkii la soo dhaafay Ruushka ayaa duqaymo dheeraad ah adeegsaday, waxayna garaaceen oo ay duqeeyeen kaabayaasha tamarta ee Ukraine. duqaymahaas ayaa khasab ka dhigay in korontada laga gooyo caasimadda Ukraine ee Kiev iyo magaalooyinka kale ee dalkaas. dhinaca kalena wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in si ku talagala loo qarxiyey dhuumaha gaaska ee Nord Stream, waxayna wasaaradda difaaca Ruushka ku eedaysay dalka UK inuu ka dambeeyey howlgalkii lagu qarxiyey dhuumaha gaaska ee Nord Stream. dowladda Ingiriiska ayaa eedayntan loo jeediyey ku tilmaantay been abuur aan waxba ka jirin, waxayna sheegtay in eedayntan Ruushku ugu talagalay inuu dadka uga mashquuliyo fashilka militari ee Ruushka uga yimid dhinaca Ukraine. Ruushku weli ma keenin caddaymaha eedeymaha in xubin ka tirsan xulafada NATO ay waxyeelaysay kaabayaasha muhiimka ee Ruushka, iyadoo lagu jiro xilligan qalalaasihii ugu xumaayay dhanka xiriirka ee u dhexeeya reer galbeedka iyo Ruushka tan iyo dagaalkii qabooba. sidoo kale wasaaradda difaaca Ruushka ayaa ku eedaysay khubaro Ingiriisa oo ka tirsan unugtii hagaysay weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine inay weerar ku qaadeen markab Ruushku leeyahay oo ku sugnaa badda madow ee Ruushka ee Crimea sabtidii shalayto. waxayna Ruushku sheegeen in unugtaas oo ay la socdeen khubaro Ingiriisa inay mas'uul ka ahaayeen burburintii dhuumaha Nord Stream. sida laga soo xigtay wakiilo ka socda unugtan ka tirsan ciidamada badda ee Ingiriiska ayaa ka qayb qaatay qorshaynta, bixinta iyo hirgelinta weerar ka dhacay badda Baltiga bishii Sebtembar 26 iyagoo qarxiyey dhuumaha Nord Stream 1 iyo Nord Stream 2 oo ah dhuumaha gaaska ee Ruushka sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Ruushku. laakiinse boqortooyada Ingiriiska ayaa eedeymahan u dhambeenisay. dhinaca kalena WHO ayaa sheegtay inay gurmad caafimaad u soo diraysa Soomaaliya. madaxa hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka WHO Tedros ayaa sheegay inay Soomaaliya gargaar caafimaad oo degdega u dirayaan. Tedros ayaa tacsi u diray dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaanna qoysaskii sida gaarka ah uu u saameeyey qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. wuxuuna carabka ku dhuftay Tedros in dowladda Soomaaliya ay ka kaalmeynayaan sidii loo daaweyn lahaa dhaawacyada faraha badan iyo hanaanka tiiraanyo bixinta dadkii ay dhibaatada xun soo gaartay. madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa si adag u cambaareeyay qaraxyadii shalay dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Ruto oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi, shacabka Kenya waxay garab taagan yihiin Soomaaliya kadib weeraradii argagixiso ee galaaftay nolosha 100 qof. waxaa naga go'an inaan kala shaqayno dalalka kale iyo Soomaaliyaba si ay u xaqiijiyaan nabadda iyo ammaanka gobolka.